Khalid Cabdiqaadir oo ku sugan magaalada Hargeysa waxa uu xanaaneeyaa shimbiro fara badan oo aabihii ka dhaxlay, balse sheekada ku saabsan qoyskan way ka duwan tahay quudinta shimbiraha oo kaliya. Khalid mar uu wareysi siiyay idaacadda BBC-da laanteeda afka Soomaaliga ayuu ku sheegay in isaga iyo walaalihiis ay isla soo koreen shimbirahan, xiriirka ka dhexeeyana uusan ku ekeen kaliya mid samafal ah, balse ay wadaagaan saaxiibtinimo iyo aqoon aad u qoto dheer. Khalid waxa uu sii sheegay in qoyskiisa ay quudinta shimbirahan soo wadeen muddo ku dhow 20 sano, ilaa haddana ay sii wadaan. Aabbahay baa bilaabay markii uu qadarka ku yimid ee uu geeriyooday ayuu dardaaran uga tegay, waxa uuna nagula dardaarmay in shimbirahan aan quudino oo quudintoodu ay ahaato mid xiriir ah oo aan la joojin, ayuu yiri Khalid. Wiilkan ayaa sidoo kale sheegay in hadda uu qarash badan oo joogto ah ku baxo quudinta xayawaankan. Markii ugu horreysay waxaa lagu bilaabay wax ka yar 1 kiilo, balse hadda waxay maalin waliba cunaan ku dhawaad 30 kiilo oo galley ah, sida bani'aadamka oo kale 3 waqti ay wax u cunaan, ayuu yiri. Arrinta la yaab kale waxay dhacday markii uu geeriyooday Khalid aabihii, oo ah saaxiibkii ugu horreeyay ee shimbirahan korinayay. Wiilkan waxa uu sheegay in markii dadku ay soo aaseen meydka aabihii, ay raaceen shimbiraha oo la tegay ilaa qabriga. Khalid oo dhacdadaasi ka sheekeynaya ayaa yiri, maalintii Allah u naxariistay uu dhintay marxuumka, waxaan arkay dadkii iyo shimbirihii oo si wadajir ah ula socda meydka. Waxay ahayd waxyaabaha ugu yaabka badan oo aan la soo kulmay, waana arrinta ay dareensiisay inuusan kaligay iga dhiman ee bulsho dhan uu ka dhintay, ayuu yiri. Markii aan arkay shimbirihii oo dul taagan xabaashii, waxay noqotay waxyaabaha igu dareenka badan. Ilaa hadda dadku intooda badan waxay igu soo celceliyaan in sidaas oo kale iyo xabaashaynu u soo dul istaagi doonaan haddii aan si fiican u xanaaneyno, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Taas waxaa sii dheer in shimbirahan ilaa hadda booqdaan qabriga Cabdiqaadir. Mar walba oo aan xabaasha aabba tagno, sida maalmaha Jimcaha ayaan qabriga soo booqanayno, shimbiruhu way yimaadaan. Markaa waxaan is dhahaa xilli kasta dareenkiina ayaa isla shaqeynaya, ayuu yiri Khalid. Mar walba oo aan xabaasha aabba tagno, loo garay sidoo kale YouTube-kana